بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلمير كستجوبتي وعنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحي جنالكي كحرن حانو أكتين wax cusub wax tayo leh wax kasto wanaagsan intaas hada ugu baxo video aan gadaashayga saaran waa wiil Soomaaliyeed oo xanuunsan oo saqiir ah walaalayaal xanuunkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala keenay horta wiilkan Soomaaliyeed aloo wada kaco Soomaalida wees caabisa Soomaali iskuma fiirsata jiro iyo dhibaato wiilkan waa wiil xanuunsan oo ka xanuunsan yahay baarka waa u jeedin hooyadiisa aabihiisa usiga wiilkan xanuunkan waqti badan oo hay Soomaali meel la geeyay isbitaal la geeyay mal gudaha dalka wax waa lagu xaway wuxuu u baahan yahay wiilkan inuu dibida loo qaado marka yaa u baahan dadka Soomaaliyeed loo rabaa marka inuu u kacaan waa dad dhibaataysan oo waxba haysan gacantooda waxba ku jira waayo maamada Ilaahay baa ila ogay waxa ku dhaxnoolad familkeeda wiilkan waxa la jirida bushigaada iyo baahidaada waa la isku nacaamdil ay markeeda beema maxaa yeelay guri oo ku noolaayeen oo familkeeda ku noolaayeen alee dhahay wiilkaada maalin kasta bushi ka bixin naga fogey Ilaahay kugu dhaari bin aadanimo miya war jirina Ilaahay subhanahu wa ta'ala keen aniga hore oo qabiil loo dilo qabyaaladna dishay qabiil isku caayina qabiil iyo qabyaalad isku caay jirnay horta qabiilku wax caadi ah waa laakiin qabyaalada la diiday kali qabyaalada isku caay jir maanta jiridii miya gashay heerkaas مجردي على اسكو عين مجردي على اسكو فقوقة وواحد إلهي سبحانه وتعالى كان هو وحاسو قلنت واحد باطوا قف كاسو قلنت قف إنه إلهي قلنا ما أنت فرير هذا على خبطه يو عرّ إلهي سبحانه وتعالى عذر كان إله وقف كان حتى أسجر أو إسكا قاعدة كارو مرة إسكا قاعدة لكن قبيلة هذا أفكار كراسنا هذا قبيلة هذا إسكا عفك لكن جرنا إلهي وقت wax Ilaahay watanay qof bini aadam loo macay way qabyaalada oo kale inta waa qalad inuu qofka afka ku caynaysa laakiin sidoo dadka kale inta oo hebelo saama iyo hebelo saama farxumada wata iyo waxa soo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkan abuurka Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidii wax ka sheegto waa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqoonin waa qofkaas maxaa yeelay qofka haduu Ilaahay yaqaan oo Ilaahay ka cabsana oo iimaankiisa sugan yahay qofkaas bini aadam wax kama sheego qofkaas uunka Ilaahay u si soo Ilaahay aad u saan qurxan yahay yaasiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas xun yaasiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas wuxuu Ilaahay siiyo inuu ku mahadiyo ku shukriyo marka walaalayaal wiilkaas loo kaco halaas waana iga tahay ficilka iska dhaafa dad isir Soomaali qabyaalada maahina inta kale waa ku roontiin qabyaaladaasna hadda waa inay si dhamaanaysa haddana wax ayaa ku darsanan Ilaahay kuma soo inuu jiro isku caayno walaalayaal wiilkaas walaalkeena ah oo saqiirka ah aan u kacno idaacada Shabeelle oo umaad celinayna maxaa yeelay dad kasto dhibaataysan guriyahooda oo ku tagta maanta waa inoo loo kaca idaacada Shabeelle kan idaacada waxa loo baahan dhammaan inuu kaalintooda qaataan waxaan siyaasadda 24 saac ka sheekeeyay hebela isku dhacay iyo hebela la doortay iyo hebel u tanaasulay iyo hebela wax gadaraba iyo hebela bad gadaraba iyo waxaas inoo iska dhaaftaan ordaha guryaha gargaraace wixii dadka ku noolyihiin oo dhibaataysan bal soo weydiiyo idaacada waxaas loo baahan yahay waxaas tayo iyo qofka sumcad idaacada ku helaysa guryaha gargaraaca dhibaatadooda soo ogaad caruurta xanuunsan waayelada xanuunsan qofka dhibaatahayo qofka la cunsuriyeeyay waxaas soo raadiyo waxaas tayo iyo maamus ku helaysiin laakiin hebela xilka laga qaaday iyo farmaajo iyo roob la isku dhacaan iyo waxaas waa mahaween waxaas oo kale wax soconaya ma aha farmaajo iyo roob le meel ku mageenayeen lacag lagu siiyo iyo farmaajo caayl u dhahay iyo lacag lagu siiyo roob la caayl u dhahay iyo waxa faa'iido ka helaysa Ilaahay abuurtay male waxa ajri ahsanaad ka helaysa wax khayrka qabo iyo qofka dhibaataysan iyo qofka masaakiinta dhibka haasto maanta hadaa soo tabis ayaa khayr ku helaysa walaalayaal waxa loo baahan yahay dhamaanteen inuu waxaas ka qayb qaadano dadka YouTube-ka ku jira saas loo baahan yahay dheel iyo naag is dhuuqaysa iyo bareenka iyo waxaas inuu iska dhaaftiin wixii dhibaataysan inay kaalintiin ka qaata walaalayaal subscribe noo saar saacad kale noo sii gudbi anaga waxa wanaagsan soo gudbiyana horumarkaan rabna insha Allah waa gaarina Ilaahay aan ka sugayna ka sugoona waxaan rabnaa inuu sii gaarsiin subscribe asxaabtu sii gudbtaan oo dhamaantiin anaga dhan waa isku baahanaa walaalayaal soo dhawaada assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh